ballanteenu waa doorasho waxaan dalka ka tegey isagoo dalku nabada oo xasiloon oo nabdoon waxa ayaan darraa in madaxweynihii dalka qalalaasa siyaasadeed geliyo qalalaasa kasta waxa ugu weyn oo ugu xun in dalgalo muran dastuuriya markaa madaxweynihii dalkii wuxuu geliyey muran dastuuriya miyaynu yeellaa waxaan shacbiga somalilan iyo daneeyayaasha somalilan oo dhan u sheegayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu qaadi doono mas'uuliyadda dhibaato kasta oo ka timaadda qaladahaas waxaan halkan idinka caddaynayaa shacbiga somalilan iyo dhammaan daneeyayaasha somalilanba in xisbiga waddani iyo xisbiga kale ee mucaaridka ah ee ucid midkoodna aanu ka soo hor jeedin furista ururada siyaasadda cuqdadna ka qabin furista ururada aqbali doonina labada xisbi waxaan xeer jidaynin ama sharci jidaynin doorashooyinka waxaa loo soo kala horraysiinayaa siday u kala horreeyaan doorashooyinka waxaa loo soo kala horraysiinayaa siday u kala horreeyaan waxaa ugu soo horreeya doorashada madaxtooyada oo ku beegan 13 Noofembar siduu madaxweyne muuse wareegtadii uu qoray bisha Julaay 20keedii ugu gudbiyey golaha wakiilada sababta ugu weyn uu soo celiyeyna waxay ahayd wuxuu ka hor imanayay xeerkaasi doorashada madaxtooyada oo ah doorasho dastuuriya doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa in saacad lagu daro ma ogolin in saacad lagu daro ma ogolin in saacad lagu daro ma ogolin been ogollay tartanka ururada diyaar baannu u nahay marka ay dhammaato muddada xeerku siiyey jiritaanka axsaabta qaranka diyaar baannu nahay qoladale axsaabtaa diidan waa beenaalayaal waana doorasho diid waa beenaalayaal waana doorasho diid madaxweyne muuse waxaan u sheegayaa inaanaan madaxweyne u aqoonsan doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa dastuuriga ah haddaanu qabannin doorashada maalin labad waxaad maqlayseen xukuumaddoo tidhi ururadu way iska furan yihin haddii doorashada la qaban waayo madaxweynayaashuna way iska furraan doonaan haddii doorashada la qaban waayo siday u yidhaahdeen ururadaa iska furan madaxweynayaashuna way iska furraan doonaan u soo guraanadayaa hadalkayga baaqaan u dirayo shacbiga somalilan waxaana weeye shacbiga somalilan nabad buu u baahan yahay cadaalad buu u baahan yahay doorashuu u baahan yahay waa inay gacmaha isu qabsaan shacbiga somalilan inay ka hor tagaan oo ay diidaan oo ay beeniyaan qalalaasaha madaxweyne muuse dalka geliyey si ay u badbaadiyaan qarannimada somalilan
si ay u badbaadiyaan qarannimada Somaliland iyo dimuqraadiyadda Somaliland Allah idin barakeeyo ilaahay madar khayr qaba ayna siiyo ilaahay madar ay naga jabiyo abaaraha